waxaa la yiri god sideed qodin wadana hadheerayn ku dhici doontidna lama oga waxa waaye arrinta ka dhacday magaalada Minneapolis arrin la yaab leh runtii waa arrin awli uga dhicin hadda ka hor magaalada Minneapolis oo ah in Soomaalida ku kala qaybsanto doorashada Minneapolis iyo Minnesota oo dhanba in Soomaalida ku kala qaybsanto oo hal meel u codeynin aysan u codeyninna dhalinyaro Soomaali ah isu codeynin waxa waaye waa arrin soo socotay muddo oo la lahaa warbalnimayo arrintan arrin fiican maahe halaga joogo maaragtay halaga joogo arrintan dad waxaa soo baxay inta Soomaalidii meesha ay geysay haddana Soomaalida laftigeeda ka soo horjeestay waa Ilhaan Cumar iyo Cumar Fatax dhowr jeer loo digay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo han u haysay inay meesha maaragtay ii sheegeen gobolka iyo magaalada ay jagooyin ka qabtaan ay hor istaageen markaas waxay uga heliyeen dad ajnabi ah Yahuud Spanish Pakistan Hindi qof alla qofkii Soomaaliya ama wiil ha ahaato ama gabar ha ahaato oo istiraada meesha raadi weyn dadkaas ugu helinayeen waxay sameynayaan wax endorsement oo ah in qofkaan rally ka yahay isaga oo macnaha ii sheeg oo inuu maartay u tartamo meesha una taageersan yahay dhowr jeer waxa warhoy ka joog warsansima war dhalinyarada Soomaaliyeed oo uga heelinaysiin muxuu ahaa ajnabiga ka jooga oo iska daaya maya gabar yar waxaa jirtay xataa